dowladda federaalka Soomaaliya ayaa gabi ahaanba joojisay lacagtii ay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ka qaadi jirtay ardayda qaadanaysa shahaadada dugsiga sare. wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Faarax Sheekh Cabduqaadir ayaa shaaciyay in wixii maanta ka dambeeyay aysan dhici doonin in ardayda laga qaado lacagtii ay ku heli jireen shahaadada dugsiga sare maadaama uu sheegay in shaqadaasi ay tahay mid laga rabo wasaaradda maadaama imtixaanka iyo shahaadada ay yihiin howl ay qabanayso wasaaradda waxbarashada laga bilaabo maanta. أنا وزارة waxbarashada wax qarash ka qaadi doonin shahaadada ardayda dugsiga sare ayuu yiri wasiir Faarax Sheekh Cabduqaadir. wuxuu hadalkiisa ku daray waxa jirta lacag ay qaadi jirtay wasaaradda maaliyadda sideeda ay u qaadaysaa waxaana ognahay in markii hore ahayd $5 taas ayaa laga qaadiya laakiin wasaaradda waxbarashada waxa lacag ay ka qaadayso shahaadada dugsiga sare haba yaraatee ma jirto. wasaaradda ardayda doonaysa shahaadada dugsiga sare wax ay ka qaadi jirtay lacag $25 oo ay soo dheeraad helaaluush xad dhaafo oo laga qaado waalidiinta. sidoo kale ardayda ayaa waxa $15 ka qaadi jiray iskuulka waxbarashada ay ka dhimaystaan wasaaradana lacagta iskuulada ay qaadaan kama aysan helin waxana kaliya la joojiyay midii ay wasaaraddu qaadi jirtay. sidoo kale $5 oo ay qaadayso wasaaradda maaliyadda ayaa wali taagan. sidoo kale wasaaradda ayaa qiimo dhimis ku sameysay ardayda dugsiyada sare ka baxay wixii ka horeeyay 15 ee aan galin imtixaanka dawladda oo laga qaadi jiray $100 waxayna wasaaradda sheegtay in hadda kadib laga qaadi doono $5 marka ay qaadanayaan shahaadada dugsiga sare ee dawladda. talaabadan ayaa bilow ah isbedelada wasiirka ku soo kordhinay nidaamka waxbarashada dalka oo kamid ah ballanqaadkiisa markii uu xilka la wareegayay. Faarax Sheekh Cabduqaadir waxaa loo arkaa wasiirka kaliya ee haya xilka 100% ku habboon maadaama uu muddo 20 sano ka badan ku soo shaqeynay waxbarashada dalka xilli dalka uu dawlad la'aan ahaa isla markaana hay'adihii iyo dugsiyadii uu aasaasay ay ka aflaxeen 100